Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. As promised, today is Tuesday, so we're going to have our short story Tuesday. Walaalayaal casharadeena kusoo dhawaada. Maanta talaado waaye. Marka sheekooyinka gaagaabneen baan galaynaa. The Lion and the Mouse. Libaaxii iyo jiirkii. A lion was sleeping in a forest. Libaax baa jiifay duurka. A mouse started playing on it. Jiir baa bilaabay inuu ku kor boodboodo. The lion was disturbed. Libaaxii wuu dhibsaday and arose from his sleep. Markaasuu hurdadiisii ka soo kacay. It caught up the mouse angrily. Jiirkii wuxuu u qabtay si uu xanaaq ah and tried to crush it to death. Markaasuu u damcay inuu ku burburiyo ilaa uu dhinto. Then the mouse prayed to the lion. Markaas jiirkii wuxuu baryay libaaxii to leave him off, inuu iska sii daayo, and assured that it will help him. Markaasuu ka dhaadhacsiyey wuu saacideyn doonaa when it's needed, markuu libaax u baahnaado saacideyska jiirka. The lion laughed at it. Libaaxii wuu qoslay and let him off, wuuna iska sii daayay. One day the lion was caught. Maalimaha ka mid ah libaaxii waxaa uu lagu qabtay in a net spread by a hunter. Ugaarsaday meesha wuxuu dhigay shabaq. It roared, wuu cawaaday, and tried to escape. Wuxuuna isku dayay inuu ka cararo oo ka baxsado, but in vain. Wax kastuu suubiyey ka baxsan waaye. The mouse heard the lion. Jiirkii wuxuu maqlay libaaxii roaring, qaylida libaaxii buu maqlay, and came there. Markaasuu imaaday. It started cutting the net. Markaasuu bilaabay inuu shabaqi jaro with his teeth, ilkihiis inuu ku jaro. The lion escaped and thanked the mouse. Libaaxii wuu baxsaday, markaasuu ku shukriyey jiirkii. Moral of the story, sheekada ulajeedadeeda iyo faa'iidada sheekadan laga helayo. Do good and it will always come back to you. Wanaag samee, mar walbo way kuu soo noqon doontaa. A good boy. Wiil fiican. It was Monday morning. Waxay ahayd Isniinta subaxeeda. Little Pedro got up. Pedro yariiso wuu soo kacay. He made his bed. Sariirtiisuu goglay. He took a bath. Wuu qabaystay. He put on clean clothes. Dhar oo nadiif buu gashtay. He combed his hair. Tintiisuu shallaystay. Little Pedro ate his rice and fish. Pedro yariiso wuxuu cunay bariiskiisii iyo kalluunkiisii. Then brushed his teeth. Markaas kadib buu ilkihiisii cadaystay. He got his bag. Boorsadiisuu soo qaatay and said goodbye mother. Macasalaama hooyo buu dhahay. Goodbye father. Macasalaama aabo. Comb. Shallo. My comb is very important to me. Shalladeedii aad bay muhiim iigu tahay aniga. It keeps my hair neat. Timahayga nadiif bay ka dhigtaa and shiny. Wayna dhalaalisaa. It has a wide handle. Gacan ballaaran bay leedahay. For me to hold comfortably. Inaan si murtaax u qabsado oo idhibeynin. My mother bought it for me. Hooyaday baa ii soo iibisay last week, usbuucii hore lasoo dhaafay. It costs very cheap. Waa beec jaban baa laga soo bixiyey, but very important to make my hair tangle free. Laakiin aad bay muhiim u tahay inay tinteydii kala bixbixiso sifa ay iskugu dhegin. Ben and Brownie. Ben iyo Brownie. This is Ben. Kan waa Ben. He lives in a simple house. Wuxuu ku nool yahay guri iska caadi. Ben has a big brown hen. Ben wuxuu haystaa digaag weyn oo bunni ah. He calls him Brownie. Wuxuu ugu wacaa Brownie, magacaas u bixiyey. Brownie has some chicks. Brownie ilmo digaag bay leedahay. Ben gives Brownie some corn.
Ben Brown wuxuu siiyaa galley. He gives the chicks some rice. Ilmaha digaagan wuxuu siiyaa bariis.